ergabana waxaan leeyahay hallow wala kallo reeshixi saxaaq horaankiin isu baray maanta rabbiya idinka balmaayo haddaydin hargeysa iyo burca iga baryin aabbahay biyihiisi badhax baan ka hartina kama dhalan ninkii baqayo hadeer ba iskaga tag waa la gelayaa waa lagu dhimanayaa waa nabadgelyo idinka burburiyay soddon sannadood ayaa laga soo gudbay waxaad ku soo khatinteen idinkoo dumarkiinni iyo carruurtiinni iyo kuwa maamulku sheegka iskaashanaya inaad dadkii guryihii iyo meheradii kala soo baxdaan hirinka ceergaabo waa inaad ka hawlgashaan naftiinna hurtaanoo waa inaad ka hagar baxdaan dhibaatada iyo shaqaaqadaa ka soo biirtay ceergaabo waxaan leenahay dadkan kantaroolka loo dhigtay oo maatada ah faraha ha lagala baxo caqliguna inuu shaqeeyo baa la rabaa magaaladu waa kala qaybsan tahay qaybta bariga dadkii lahaa ayaa u tashanaya iyaga u taalla haddii calan ka taagan lahayn hadda u tashan lahaayeen qaybtiinana idinka ayaa u dawladda qaybta hoose dawlad uma tiidin intaan magaaladu dumin oo dhibaata soo kordhin oo dadku qixin oo la dhiman waxa fiican caqligu inuu shaqeeyo wax badan la fahmo anigu waxaan ku talinayaa 30 sano saad ku sii wadeen ma aha kuma sii soconayso dadku guryahooda iyo beerahooda iyo hantidooda iyaga iskale cid kalena inay ugu taliso oo ku maamusho 30 sannadood ayaa laga soo gudbay waxaad ku soo khatinteen idinkoo dumarkiinni iyo carruurtiinni iyo kuwa maamulku sheegka iskaashanaya inaad dadkii guryihii iyo meheradii kala soo baxdaan oo dadkii laysaan oo guryihii iyo meheradihii bililaqaysataan marka waxaan ku talinayaa in maaragtay caqligu shaqeeyo oo si fog loo fakiro inteenaana isku dhiman dadku oo dhibaato dhicin waxaan leeyahay dadka xaafadda magaaladu waa 2 xaafadood gobolka Sanaag 2 degme hadda iska kala noqotay degmo bari iyo degmo galbeed degmada bari faraha kala baxbanayaan anigoo ku hadlaya afka ciidamada Maakhir State iyo waxaan halka fariin uga diranaa dadka jooga magaalada Ceergaabo laba fariimood baan u diranaa mid waxa weeyaan dadka Ceergaabo iyaga u madax bannaan inay deganaanayaan magaaladooda iyagana u madax bannaan inay ka guurayaan yaan lagu toolshan karayn dadka magaalada lagama guuri karo iyo waa la guuraya yaan dadka lagu toolshan karayn dhanka iyaga magaalada anagu waa gelinaa waanu xukumanana idinmana soconno ciidanka iyagu Ceergaabo waa tagayaan waana gelayaan ninkii ka hor istaaga baabuurta tiknikada ee qabaalada ay wiilasha saaran buu la hadlayaa afkoodu wiilasha baabuurta saaran buu afka yaqaaniin buu kula hadlayaa ninka ka hor istaagan inay daanteeda galaan magaalada waxaan halka fariin u marinaynaa niman iska urursanaya Ceergaabo oo danahooda arrimahooda ku fushada Ceergaabo siyaasadahooda iyo arrimahooda kaga hadla shacabka reer hartiyeed ee halka degan ma matalaan waa niman danahooda meesha u jooga waa niman iyaga masiirkooda meesha ku ilaashada waa niman la shaqeysta maamulka argagixisada ee Soomaaliya fallaagada ka noqday la shaqeysta ciidamada aanu soo dirnay ee u soo dirnay shacabkooda lagu gumaaday argagixisada gumaada soo difaacaya dadka bogaanbadaha iyo beenta ka sameynaya oo waa niman Soomaaliland u socdo war Soomaaliland waa dhamaatay argagixiso SLM la yiraahdo oo isaaq meesha joogta ninkii isaaqnimo raba isaaqnimo ninkii raba waxaanu codsanaynaa isaaqnimo ninkii raba isagoo aan balaayahayn cidina aanay daba joogin isaaq dhul buu leeyahay oo dega ha ugu tago ninkii jecel isaaq ciidamada halkaa waanu dirnay waa ciidamada shacabka hartiyeed ku socda luuqadda hartiyeed oo damiir kale oo fiyow bay ku hadlayaan dadka hartiyeedna waa tol walaalaa lamana kala guri karo lagumana hadli karo wax khiyaali oo sheeko lagama sheekayn karo oo maatadayada iyo gargeydhayada iyo dhalinyaradayada waxna lagu xasuuqay Ceergaabo waxna maxaabiis ahaan loogu haysto bandooga lagu saaray oo loo dawladeeyay shaarka dawladeed SLM u gashatay ayay daaran tahay arintan inaanu kaga hadallo 4 qodob baan kaga hadlayaa arinta 4 qodob mid SLM baan leeyahay midna waxaan leeyahay hartiga jooga Ceergaabo gudaheeda oo dhibtan ku haysato qodobna waxaan leeyahay qurba joogta harti qodobna waxaan leeyahay dadka ay ka dhasheen dadka gudaha lagu haysto inayna maxaabiista tahay inayna dhimatay
oo ceergaabo gudaheeda ku dhibaataysan dadka ay ka dhasheen oo u ah garabka iyo gaashaanka rag iyo dumar cidda ay qusayso oo ay u horeeyaan ciidamada gobolka Sanaag ee hadda ku sugan laamiga ayaan arrintan qodobkan kaga hadlayaa markaan ku horeeyo tan ceergaabo waxaan leeyahay dadka ceergaabo ku jira gudaheeda oo intii dhimatay way dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawaca Allah u boogadhayo inta nool oo maxaabiista u aydoor habar xabuusheed reer Isaaq inta u maxaabiista waxaan leeyahay gumanimada idinka isgeliyay ceergaabo inaga iska leh in badan baa Isaaq idin haltigay in badan baa Isaaq sidii laas caano doqoniino iyo tuuga idinku dilay iyo guure iyo garaaraco iyo gaadmo waa nabad bay idin yiraahdaan markay idin dilaan waa qaadataan afarta caadi qaate oo ceergaabo jooga hartina ma matalaan idinma matalaan horey idin duleeyeen dullitooyada iska roga dagaalama guryaha ka soo baxa RRU yaan la idin sheegan yaan guryaha maxaabiis la idinkaga dhigin la soo baxa mindiyaha iyo khalaasiyaha Isaaq iska celiya geeri xaragada ku dhinta caruurtiina yaan gaajo yeelayn ceergaabo ku aarsada gudaheeda ku aarsada waxaan la hadlayaa nimanka reer Isxaaq waxaan leeyahay anigu hadalka badinba maayo waynu sogin gooja cadde iyo maraagi ceergaabana waxaan leeyahay hallow walakalo su'aalow ya adla ya miidaan waynu siimanaynaa haddana way idinku celinaya kelmadayda faan hallow walakalo dhiigga iyaga iyo sharaftayada iyo maalka iyaga iyo dhulka iyagana ninaan marti oga nahay ma jiro cidii ku soo xadgudubta haddayba hore ugu soo xadgudubtay oo kuwii guryaha jabsaday oo hantida qaatay oo dadka shacabka laayay weli meediyaha aan ka aragnay oo ka hadlaya waxaan u leenahay jawaabta idinku waajibka aad heli doontaan haddii aydan ka tanaasulin waxaan leenahay inta aad leedihiin iyo dhulkiina iyo danihiinu ay qaadeen reerna ma dawladeyn karo reerna reer marti uma aha ninkii baqayo hadeer ba iskaga tag waa la gelayaa waa lagu dhimanayaa waa la isku gelayaa ninkii baqaaya ninkii kaleba nimankiina horgalada waxaan u sheegayaa waa cun lahaydeen cunno dambeeyni ka degi mayso yaa kuwa joogi marajay afurul ciidanka geeyo ciidanka soo celiya baan inkana ilaa gala dagaalka waxaan u sheegaynaa nimanka Islam dadkan reer Maaqar 33 sano Islam jirtay Islam baa u yaqaan reer baa u yaqaan marya alool baa u yaqaan wax maamul la yiraahdo uma yaqaan wax dawladda ma yaqaan qarantoon waa dadka reer Maaqar ilmaha 10 jirka wuxuu koranaya waa Islam waa qoys waa Isaaq laan baa u yaqaan Isaaq laanay magaalada oo deganahay wuxuu yiri hashaan anigaan ka taalaha dhacay haysan qori gaaban hashaan gaanta weyn oo libaax uga gibsan waayay niman goriyo cawl uga tagaa hal soo guray nimaanu maanta idinka tagno ama nabadgelyo ka dhacdo laga yamaayo nabadgelyo idinka burburiyay intaas aan leeyahay